kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasta oo aad joogtaan iyo waliba si kasta oo noola socotaan halkani waa Suldaanka TV waxaad uga barataan Suldaanka TV warar saxan oo xaqiiqda ku salaysan iyo xogihii ugu dambeeyay ka jira Soomaaliya caalamka qodobadan warka ku eegi doonana waxa kamid noqonaya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya oo la soo warinayo in dalka Turkiga oo kula kulmayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan warka ku eegi doonaa kulan qarsoodiya oo la soo warinayo in Khayre iyo madaxweynaha talada haya oo ku dhaxmaraya dalka Turkiga iyo Khayre oo heshiis la galaya madaxweyne Farmaajo muxuu yahay heshiiskaas maxaa kala socota qorshaha lagu afgambinayo midowga murashaxiinta mucaaradka oo lagu kala furfurayo oo xilligan ka socda dalka Turkiga warka ayaan ku eegi doonaa shirkii ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale hogaamiye goboleedyada oo fishilmay iyo diidmo xooggan oo ka timid hogaamiyaasha waxaan idin soo gudbin doonaa shir fogaan araga oo lagu wada inuu qabsoomo iyo sidoo kale shirkii tooska ay ka soo horjeesteen in hogaamiyaasha isugu yimaadaan gudaha magaalada Muqdisho waa kuma hogaamiyaasha diidan inay la hadlaan siyaasiyiinta mucaaradka ku sugan Muqdisho iyo sidoo kale in kulanka Muqdisho ay uga faa'iideystaan mucaaradku waxaan idin soo gudbin doonaa hogaamiyaasha Jubbaland, Puntland, Galmudug oo si wada jira u shaaciyay inaysan la fariisan doonin siyaasiyiinta mucaaradka ku sugan gudaha magaalada Muqdisho warka ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale ee neehanana waxa kamid noqonaya wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse oo la soo warinayo in maalmihii la soo dhaafay oo arrimo xasaasi ah ku saabsan doorashada iyo dib u dhiska ciidamadaba oo ka waday dalka Turkiga iyo kula kulmay yaysa tahay cidda uu heshiisyada la galay Cabdi Saciid Muuse warbixin ku saabsan oo xasaasi ah warka ayaan ku soo gudbin doonaa qodobadana kalena waxa kamid noqonaya maxay ahayd fariinta wakiilada beesha caalamka ay la wadaageen hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kulan qadka suumka ku dhaxmaray Qoorqoor iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka ku saabsan doorashooyinka Galmudug iyo sidoo kale in kor loo qaado guud ahaan doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Galmudug tan lagu qabanayo warka ayaan ku soo gudbin doonaa iyo wararkii ugu dambeeyay guddiga doorashada oo ka dagay magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose iyo sidoo kale doorashada Kismaayo oo degdeg loo guda galayo saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV subscribe saara Suldaanka si share garay oo muuqaaladan saaxiibada gaarsii si ay kula daawadaan like iyo commentiga naga iloobin qaybta hoose noogu soo qor fikirkada saliimka ah iyo aragtidaada suuban iminkana u diyaar garooba qodobadii aan dul maray oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilowno warkeena warka Turkiga aynu ka helayno ayaan ku bilaabaynaa warkeena sida ila kala duwan ay noo xaqiijiyeen ee ka tirsan dhinaca dawladda Soomaaliya dalka Turkiga waxa ku wada sugan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxa la soo warinayaa in Khayre iyo madaxweyne Farmaajo ay kulan ku wada yeesheen magaalada Istanbul ee dalka Turkiga halkaas oo la sheegay in kulankaas uu ahaa mid qarsoodiya warbaahintana laga qariyay taasoo la doonayay in looga wada hadlo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale qaabka markaas ee mucaaradku ay looga saari karo Khayre ila kala duwan ayaa noo sheegay in Khayre markaasi iyo madaxweynuhu ay heshiis weyn gaareen kaasoo markaasi ku saabsan in Khayre uu ka soo fuqo mucaaradka sida darteedna xoog la saaro sidii loo kala dhantaan lahaa siyaasiyiinta doonaya inay carqaladayaan doorashooyinka Soomaaliya iyagoo gabaad ka dhiganaya xubnaha awoodda leh ee xilalka ka soo qabtay dawladda Soomaaliya xogta kale Suldaanka TV helaya waxay sheegaysaa in kulankan uu yahay mid markaas gaar ah warbaahintuna aysan la socon waxana ila kala duwan oo aynu helnay sheegayaan in madaxweynuhu sidoo kale kulamo gaar la qaadan doono siyaasiyiinta isaga soo baxay mucaaradka ee doonaya in doorashada ay taageeraan iyo sidoo kale in garab laga siiyo doorashooyinka Soomaaliya loona soo saaro dhowr xildhibaan maadaama ay yihiin xubno markaas garab u muujinaya dawladda Soomaaliya wararku sida ay sheegayaan meeshaas waxa lagu gaarayaa heshiis weyn Khayre ayaa sidoo kale laga yaabaa in heshiiskaas uu noqdo in laga dhigo ra'iisul wasaaraha xukuumadda soo socda haddii madaxweynuhu talada ku soo laabto dalka ila kala duwan ayaa sheegaya in arrintaas oo markaas dalbanaya Khayre sida markaas aynu xogta ku helno waxay ku soo kordha arrintaas waan eegi doonaa oo baaritaano dheeriya ayaan ku sii sameey doonaa maadaama kulamada yihiin kuwa hordhaca oo xilligan ka soconaya dalkaasi Turkiga qodobadana kale ayaan guud galaynaa shirkii markaas rooble laga sugayay inuu u qabto hogaamiye goboleedyada oo Muqdisho lagu qabto ayaa fashilmay sida ay xogtu sheegayso diidmo xooggan ayaana ka timid hogaamiyaashii waxayna dalbadeen in la yeesho shir fogaan araga
balse xilligan aysan u suuro gelaynin inay muqdisho tagaan shir isugu tagaan la kulmaan siyaasiyiintii mucaaradka iyo cid walba markaasi danaynaysa doorashooyinka Soomaaliya hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa si weyn u qaadacay in shirkaas ay ka soo qayb galaan ila kala duwan ayaa sheegaya in Dariya Madoobe ay Rooblo u sheegeen inaysan jirin mucaarad xilligan la xalinayo ama murashaxiin la xalinayo maadaama doorashadii markaasi lagu kala bixi lahaa xildhibaanadeeda aysan weli soo ilaanin sidaa darteedna marka doorashada xildhibaanada la soo dhameeyo kadib la fariisan doono murashaxiinta rasmiga ah ee shahaadada murashaxnimo qaata maadaama xubnaha iminka Muqdisho ku sugan ay ku tilmaameen siyaasiyiin dana gaar leh oo aan ahayn murashaxiin rasmiya sida markaasi xogta aynu ku helayno Axmed Madoobe Saciid Dani iyo sidoo kale Qoorqoor hogaamiyaha Galmudug ayaa si wada jira uga soo horjeestay Rooblana ugu sheegay arintaas inaysan raali ka ahayn in xilligan ay la fariistaan ee hogaamiyaasha mucaaradka ama xisbiyada mucaaradka sidaa darteedna la doonayo in doorashada la soo gabagabeeyo kadibna la wada fariisto oo laga heshiiyo murashaxnimada iyo cidda sida tooska markaasi ugu gudbaysa in ay u tartanto xilka madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale waxay markaasi aqbaleen shir fogaan araga inay yeelan doonaan laguna markaasi loogana hadlayo doorashooyinka iyo sidoo kale duruufaha ku soo kordhay wararku waxay sheegayaan in hogaamiyaashu ay si wada jira markaasi isugu mowqif ka yihiin in la fariisan mucaaradka lana taageero go'aanka Rooble iyo doorashooyinka lana dedejiyo doorashooyinka Soomaaliya Axmed Madoobe wuxuu ka cararayaa sida inuu xogta ku helnay in haddii mucaaradku ay la heshiiyaan madaxweyne Farmaajo uusan taageero daba ka heli doonin hogaamiyadanina wuxuu ka cararayaa in codadkii mucaaradku ay heli lahaayeen ay u wareegaan madaxweyne Farmaajo haddii heshiis ay wada gaaraan sidaa darteedna waxay boobsiinayaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyagoo ka cararaya in madaxweynaha Soomaaliya uu heshiis la gaaro sida inuu xogta ku helino siyaasiyiinta mucaaradka oo maalmihii la soo dhaafay dalabyo istabajooga u dirayay sida markaasi xogta ku helino oo ku saabsan inay door bideen in mucaaradku ay la heshiiyaan madaxweynaha talada haya Maxamed Farmaajo wararkana kale ayaan guuda galaynaa Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor hogaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka madaxweynaha iyo sidoo kale danjiriyaasha ayaa si gaar ah uga wada hadlay dardargelinta doorashada golaha shacabka ilaalinta daahfurnaanta iyo waliba in Galmudug ay tartan furan qabato dhinacyada markaasi ay ku tartamaan kuraas kale Qoorqoor ayaa looga digay in kuraasta uu xiro shakhsiyaad isaga uu rabo sida uu sameeyay doorashadii aqalka ee sare iyo sidoo kale kuraastii kale lagu doortay Galmudug waxa si weyn markaasi faragelin markaasi la sheegay inay ugu hayeen xubno u dhadhow mucaaradka balse arintaas waxa la sheegay Qoorqoor inuu ka gaashaantay meeshana ka saaray doorkii siyaasiyiinta mucaaradku ku doonayeen inay ku farageliyaan doorashada Galmudug taasoo dhalisay in Qoorqoor uu meesha ka saaro wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mudane Cabdi Saciid Muuse waxa la soo warinayaa in uu markaasi madaxweynaha uga sii horeeyay dalka Turkiga isagoo markaasi kulan doceedyo kala duwan ka waday Turkiga Cabdi Saciid Muuse ayaa la kulmay dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Turkiga wuxuuna uga mahadceliyay taageerada ay dawladda Turkiga la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed ee dawladooda kulanka labada wasiir ayaa looga hadlay xoojinta iskaashiga xiriirka qotada dheer ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga ee dhinacyada amniga dhaqaalaha ganacsiga iyo sidoo kale horumarinta waxaana labada mas'uul ay wada saxiixeen in kor loo sii qaado xiriirka qotada dheer ee Turkiga iyo Soomaaliya wasiir Cabdi Saciid ayaa ka qayb galaya wafdiga madaxweynaha markaasi uu hogaaminayo ee ka qayb galaya shirweynaha iskaashiga Turkiga iyo Afrika oo ka dhacaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana shirkan looga hadlayaa iskaashiga mustaqbalka xiriirka dalalka Afrika iyo sidoo kale Turkiga ugu dambeyntii xubno kamid ah guddiga doorashooyinka heer markaasi federaal ayaa ka degay magaalada Dhuusamareeb waa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxaana hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee heer federaal Mawlid Mataan Salaad kuwaasoo gaaray Kismaayo waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiqaadir Maxamuud Dhaqane maalmahan soo socda aba toddobaadina soo aadan ayaa lagu wadaa in Kismaayo lagu doorto 14 kamid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa markaasi la doonaya inuu soo gabagabeeyo bishan gudaheeda doorashada golaha shacabka ee lagu qabanayo Kismaayo saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga mudan halkani waa Suldaanka TV warkiina halkan ayaan ku soo koobayaa nabadgelyo